بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها الصومالية ميل كستي جوغان دالك قده سيد دبدي سبا ان وقت كان وقت أدق ودالك مرة هاي ان مصيبة كسو هبستي اعتراف كيهود قبل هذا وقوي إدهنوان اعترافني إيه سيدا اللوغو هرتغا هايو إيو ماركتي أرنتا علوصو دالكينا سو وجهدي ان حسن الشيخ anigu waxay la tahay waxa u sababay sababta koowaad waxa weeye in xukunka xasan sheekh leenu waxay isdhaheen fursad ka fiican ma aad helisiin laba maalmood oo ordahaya sida arintii Ethiopia iyo badda wadamada adduunka wareegaya ka bacdi way iska dagaysaa waxa lagu tijaabiyay heshiiskii 2024ka Abi Ahmed oo la galay Musabbix oo ku qaadanahay 20 kiiloomitir oo badda cas marka waxay isdheen haddana tan sidoo kale maaragtay laba maalmood ordahaya waa loo yeerahaya Addis Ababa iyo meel kale looga yeeraya ama wadanka Carbeed uu iska dagahaya haddii xilliga farmaajo kale ahaan lahayd waa la ogaa wadacadu mariyay Ethiopia iyo Abiy Ahmed xulafay ahaayeen saddexda dowlad Masar yaan dhihin Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya waati isla socon jireen saddexda hogaamiye mar Soomaaliya ay ka degaan mar Eritrea mar Ethiopia maxaa ugu wacna haddana ay cadow yihiin siyaasi Afwerki iyo Abiy Ahmed waxa ugu wacna Abiy Ahmed wuxuu arkayay hogaamiyaal go'aan leh oo difaaca dalkooda aan ka gorgortamayn adiga Soomaaliya haddaad jilicsan tahay ciidan ahaan ama dagaal ahaan hadda aad ku hortagi karin cadawga Etoobiyaanka laakiin haddaad go'aan leedahay wuxuu arkayaa dal go'aan leh oo dad haddii uu lahaa kuwa ku soo duulaysaa dad u gurmado saaxiibayaal dhow iyo dad meel kala fog muhiimada waxa weeye inaad go'aan leedahay iska celin karto marka waxay arkeen Xasan Sheekh oo maaragtay heshiisyo la galahayo wadamo kala duwan heshiisyo iska hor imaanahayo wadamo cadow ay arkeen fursad cadiima way marka asaga u sababay jiljileecis marka taladu waa maxay hadda musiibadu way dhacday see looga bixi karaa waxa looga bixi karaa ninkii mushkilada sababay asaga xalki gacantiisa kuma jiraba boqolkiiba boqol lagama sugahay xilliga Xasan Sheekh inay musiibadan xalismato haddii 4 sano kale oo ku guuleystana waaba ka sii daran arrinta way sii joogahayaan marka xaq waxa ku jiro hawiye markii fitnad ay jirtaba ee colaadda ay maaragtay loo soo yeeri karo dadka loo soo kicin karo hadda musiibo shisheeye mal inta isku imaadaan hawiye ay dhahan ninkan waxaad boobi karto waa boobtay dhul dad waa dhacday dad nool iyo dad meyd xataa waa u dhacday qubuurihi wixii xoolo aruursan karto waa aruursata adiga inaad shaqaysataad u timid dalkan inaad wax ka qabato iyo horumarkiisa uma aada imaan marka intaad shaqaysan karto waa shaqaysatay cadow intuu dalka ku soo duuli karo adiga kala qaybinta aad dadka kala qaybisay marka waxa soo dhacda sababaha wixii aad qaadato waa qaadatay soo galin doorashadan tartan dambe iyo waxaad walaaqatay iska daayay iyo cod iyo qof iyo cod iyo waxaan sameynay adigaba ha soo galin doorashadan leeno xalka gacantaada kuma jiro si dad wadaniyiin ay u soo baxaan doorashada soo socoto ka fariiso adiga wala helayaa hogaamiye Soomaali wadani oo ka hortagi karo oo ummadda mideyn karo oo wadamada saaxiibadeen iyo ayakana ay musiibadan ku dhacday oo dariskeena Sacuudiga ugu horeeyay Masar iyo wadamada danaha kale oo saaxiibadeen Turkiga Qatar isbahaysi inta la sameeyo waa laga hortagi karaa shartan soo socot saddexda dawlado cadawga Ethiopia iyo dawladda Carabta Khaliijka iyo Israa'iil saddexda iswadato saddexda geesoodkan waa laga hortagi karaa laakiin muhiimada waxa weeye ninka aan xilka hayo waa nin wadani daacad oo yahay aan loo yeeran karin aan lacag la siin karin labadan hogaamiyo oo goboleedyada Saciid Dani hadduu guuleystaba ka sii daran waa iska qayb ka mid Soomaaliya dhan oo u saxiixaya marka Ahmed Madoobe iyo nimankan oo dhan ba waa laga takhalusi karaa insha Allah laakiin muhiimada waxa weeye 3 bilood ka bacdi
إن وضني أصبحه أن وحالي هي هويو ما أنت وحواي ومالنتيني نين كان كقبان كرتين إن دتك يومدا مركي أي فتنة جرتبة واد حسوستين farmaajo saad ugu soo baxdeen markuu idin yeeray ninka qabiilayste ah hogaamiye qabiilayste waa ninka ugu macallinsan kan xasan sheekh soo dadka uu qalabeeyay oo dhahay dagaal ka galeynaa maantana asaga in laga qabto waay wadanka والسلام عليكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته